saake waa berigii ayaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed kaas oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Maamulka degmada Walaweyn iyo dadka deegaanka oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii ay iskhilaafeen maleeshiyaad bar control ku lahaa galbeedka degmada Walaweyn gaar ahaan wadada ka timaada garoonka diyaaradaha ee Beledoogle. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca dhaqaalaha maamulka Walaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto ayaa sheegay in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen ilaa 7 ruux in ka badanna ay ku dhaawacmeen. Waxa uu sheegay in maleeshiyaad isbaaro u taalay galbeedka degmada Walaweyn ay soo weerareen maleeshiyaad kale, xaaladuna ay hadda tahay mid degan. dagaalka saaki wuxuu bilowday abaarihii 12 20 daqiiqo waxaa ku dagaalamay laba beelood walaalo ah oo hadda khasaare dhimasho dhaawac laga jiraan. maxay iska rabeen oo ay ku dagaalameen? waxay ku dagaalamayaan waa wixii Soomaaliya burburiyay waa aan qabin waqti badan hadda soo jiidantay oo alaabeen waxaan dhihi karaa bisha labaad ayaa hadda socotaa. arrintaas oo saameyn ku yeelatay wax kale ma jiro. maxaan ka ognahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaas aad sheegtay inuu dhaxmaray labada maleeshiya oo hal beel ka soo wada jeeda? labada dhinac dhimasho jirto labada dhinac markii la isku daro waxaan dhihi karaa geedo waxay gaaraysaa ilaa 7 dhaawacna waa ka tirsan badan yahay. waa gartay meesha rasmi ahaan ay ku dagaalameen ma gudaha degmada Walaweyn mise banaankeeda? saaki dagaalku wuxuu ka dhacay dhanka galbeed ee degmada Walaweyn ciidamo oo meesha deganaa ayaa lagu soo weeraray. dagaalkii markii qoladii soo weerartay ee naqatay waxaa loogu daba tagay meel magaalada waqooyigeeda ah dagaalka meesha ka dhacay kaasoo khasaare. ka maamul ahaan idinka maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ilaa hadda si dhiigga dadkaasi walaalaha ee daadanay loo baajiyo?